si aad u hagaajiso caafimaadka dheefshiidkaada una nadiifiso isticmaal subax kasta saddexdan cunto haddii dheefshiidkaada qalqalsan yahay sida dibiro ama kuleel ama calool fadhi ama gaas iyo wax la mid ah idaal iyo koror wax la mid ah dareemaysid ku dadaal subax kasta isticmaalka saddexdan ama isbuuci ugu yaraan 2 mar ama 3 mar isticmaal koosa arkaysaan oatska waxaan loo yaqaan hortiina ka muuqdo inta badan supermarketada ayaa laga helaa soo sidaan u diyaarsan balse dadka Soomaaliya joogo oo ama aan heli karin waxay isticmaali karaan maadaama qamadi oo ka sameeyeen qamadiga caadiga ah inay shiidaan mashaari ahaan u sameeysan karaan qamadigaas marka waxa aad ugu badan fibers oo saa arkaysaan waxa ku jira maadooyin ka caawinaya dheefshiidkaada in si tartiib ah oo aan degdeg ahayn u burburiyo cuntada taas oo jirka fursad u siinayso inuu si degan u nuugo nafaqada sida hortiina qoraalka ka arkaysaan sidoo kale waxay muhiim u tahay qofka hadii qamadigan oo isticmaala ama oatskan quudinta bacteria loo yaqaan good bacteria jeermisada jirkeena ku jira waa laba nooc kuwana waa kuwa jirkeena u fiican oo kuwa kala naga difaaca kuwana waa kuwa jirkeena dhibaateeya good bacteria hadii dheefshiidkaada ama calooshaada ay ka dhamaato bacteria fiican hadii jirkaada ay ka dhamaato qofka dibiriyo calool xanuun shuban bug xanuun waxa soo dareema badanaa qallajiha wax la mid ah cunayno ayaa wuxuu isku dilaa ama dilaa bacteria fiican mid xun labadaba marka in dib mar walba loo nooleeyo bacteria fiican aad ay muhiim ugu tahay jirkeena oo waa muhiim marka oatskan hadii qofku subax kasta oo isticmaalo isbuuci 2 mar ilaa 3 mar ugu yaraan oo isticmaalo good bacteria ama bacteria fiican ayuu kor u soo qaadaa labo cuntada labaad waa yogurtiga waxaan loo yaqaano saa arkaysaan noocyo kala duwan ay leedahay waxay caawisaa burburinta waxay hoos u dhigtaa dibiryada waxay sare u qaadaa difaaca jirka sidoo kale waxay caawisaa caloosha inay socoto oo ay jilacdo oo qofka calool fadhi badan uu san dareemo aad muhiim ugu tahay oatska xitaa qamadiga sidoo kale waa asiga aad ayuu muhiim ugu yahay socodka caloosha oo qofka calool fadhi doo ka cabanaya dibriya ka cabanaya gaas ka cabanaya ari ku dhex wareeganaysa ka cabanaya aad ayuu anfacaysaa meesha caanaha ugu dar leed hortiina ka arkaysaan yogurtigan ayuu qofku darayaa dheefshiidka aad ayuu socodsiinaysaa wana jilcinaysaa saddex sidoo kale banana ama mooska asagana aad muhiim u yahay arkaysaan hortiina burburinta cuntada fibers ayaa ku jira muhiim u ah socodka caloosha iyo ka hortagga mataqaan calool fadhiga sida hortiina qoraalka ka arkaysaan marka saddexdan subax kasta qofka inuu isticmaalo ayaa fiican balse jirka ula qabsanin maadaama jirka bini'aadamka wax lagu celceliyo muddo kadib uusan ka jawaabaynin waxa fiican 2 maalin ilaa 3 maalin isbuuc inuu qofka isticmaalo si dheefshiidkii oo nadiif u noqdo calooshan aysan u fariisan dheefshiidkan uusan u qaraabin qofkana dibriye iyo gaas iyo ari ku dhex wareeganaysa xanuun iyo wax la mid ah uusan u dareemin ina faantaan ayaa rajaynaya salaam